Bismillahir Rahmanir Rahim daawadayaal ku soo dhawaada warka Ramal Media. Qodobada ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan diyaaradda Fly Dubai oo ka soo degi rabtay madaarka Hargeysa dib ugu celisay hawada Somaliland. Midaasi oo qayb ka ahayd go'aamo lagu adkeenayo ka hortagga cudurka coronavirus. Tilaabadaasi oo xukuumadda Somaliland u arkaysay awood sheegasho ku aadan maamulka hawada ayaa haddana waxaa soo baxaya in tilaabadaasi dowladdu qaaday ay deegaanada Somaliland ka badbaadisay in gudaha uu galo cudurka coronavirus. Fly Dubai ayaa markii dib loogu celiyay madaarka Dubai waxaa baaris kadib la ogaaday in dad saarnaa diyaaraddaasi ay qabaan caabuqa coronavirus oo faraba'an ku haya dunida oo dhan. Dadkaasi saarnaa diyaaradda ee laga helay coronavirus ayaa waxa ay ahaayeen qoys Soomaali ah sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay. Qoyska Soomaalida ah ee saarnaa diyaaradda Fly Dubai ee dib loogu celiyay Hargeysa ayaa sida la sheegay waxa ay ka yimaadeen Mareykanka iyagoona soo maray dalkaasi Ingiriiska oo la tacaalaya caabuqa coronavirus. Danjiraha u fadhiya Soomaaliya dalkaasi Kenya Maxamuud Axmed Tarsan ayaa sheegay in safaaraddu ay shaqada hakin doonto muddo toddobaad ah oo ka bilaabanaysa maalinka Talaadada ah si looga fogaado faafitaanka cudurkaasi COVID-19 ee uu keeno caabuqa coronavirus. Safaaradda ayaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya ugu baaqday in ay raacaan tilmaamaha ay dowladda Kenya ay bixisay ee looga fogaanayo cudurkaasi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Arintani ka hadlayno waxay ku saabsan tahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya. Waxayna la xiriirtaa cudurkan coronavirus-ka adduunka ku faafay. Kenya ay ka mid tahay dowladaha uu gaaray ilaa haddana waxaa la sheegayaa inuu 17 qof uu saameeyay. Waddankeenana waa laga sheegay inkastoo haddana leeyahay hal qof. Marka anagoo ka fakarayna marka caafimaadka bulshada Soomaaliyeed ee ka adeegata safaaradda oo aad nambarkooda u badan yahay. Anagoo ka fakarayna anagoo qaadanayna awaamirta dowladda Kenya ka soo baxday oo in la wada xiro shaqooyinka oo guryaha lagu shaqeeyo. Dadkuna uu socodkiisa istaabashadiisa iyo kulankooda aad loo yareeyo. Waxaan go'aansanay safaaradda in la xiro muddo asbuuc ah oo ka bilaabanaysa 24-ka kuna eg 30-ka bishaan ku eg. Wixii shaqo emergency ah oo degdeg ah oo laga maarmi waayo waa la qabanayaa. Laakiin sidii hore safaaraddu uma shaqaynayso. anagoo awaamirtaasna fulinaya oo awaamirtana waxay ka soo baxday wasaaraddeena way ka soo baxday dowladdeena way ka soo baxday inkastoo aad ay arintani Kenya dowladda Kenya ay aad noo quseynayso sababtoo dadka soo galaya safaaradda dadka soo galaya waa dad ku nool Kenya dhibaatadiina Kenya ay ka taagan tahay sidaas awgeed waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed in arintaas ay maaragtay ka digtoonaadaan. Safaaraddii waa xiran tahay bisha 24-keeda ilaa 30-keeda haddii loo baahdo oo xaaladdu ay ka sii dartana waxaa laga yaabaa inaan muddada sii kordhino. Intaas waxaan ku darahayaa dadka shacabka Soomaaliyeed ku nool waddankan in ay maaragtay awaamirta dowladda Kenya ay soo saartay u hoggaansamaan. Waxaa ka mid ah masaajidada maaragtay iyo meelaha la isugu tagaayo maqaadaha inay ka fogaadaan. taas ayakaydan u tahay caafimaadkoodana ay ku jirtaa inayna gacanta iska saamin inay faraha ay had iyo jeer dhaqdaan inay jeebka ku wataan geedahan maaragtay gacmaha lagu nadiifsado inay jeebka ku wataan. lacag badan ma joogto. qof haddaad ay kaaga dhacdo dhaqankeennii baa salaamta ah in aad gacantii iska mayri kartid intayna afkaaga ama sankaaga ayna gacantu gaarin ama indhahaaga ayna gaarin inaad gacantii iska dhaqi kartid. inaad badanaa qaadatiin meelo cariiri ah haddaad la kulmaysiin ama gaadiidka haddaad koraysiinba inaad haysatiin maaskiga weji afka sanka lagu xiranayo inaad haysatiin. taas waxay dhowraysaa caafimaadkiina iyo caafimaadka carruurtiina iyo caafimaadka ehelkiina ay dhowraysaa. marka waxaan rajaynayaa arrintaas in loo hoggaansamo. waxaan kaloo rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay ilaahay barido inuu cudurkan ummadda uu ka qaado gaar ahaan waddankeena inuusan ilaahay gaarsiin ummaddeennana ka badbaadiyo ummadda muslimka oo dhanna uu ka badbaadiyo adduunka oo dhanna uu ilaahay ka badbaadiyo ayaan ka baryaynaa. ummadda waxaan kula talinaynaa inay maaragtay ilaahay u wada toobad keenaan. ciqaab ilaahayna way waxaan maaha wax kale maaha waa ciidamadii ilaahay bay ka mid yihiin cudurkan aan la arkaynin. marka dadku waxaan leenahay ilaahay ha baryaan
ha ducaystaan salaadaha ha badiyaan soonka ha badiyaan ilaahay inuusan maaragtay cudurkan ku faafin waddankeena waad ogtihiin waddankeena xeeladiisa tabartiisa caafimaad waad ogtihiin iyo awooddiisa iyo dhaqaalihiisaba marka ilaahay inuu naga qabto uusan waddankeena ku faafin ayaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummaddeena ka badbaadiyo waxaan ilaahay waxaan ka baryaynaa ummaddeena qulubtoodana inuu isu soo jeediyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdallaah Cawad ayaa kala hadlay odayaasha iyo waxgaradka deegaanada Xeraale iyo Huurshe sidii loo dardargelin lahaa dib u heshiisiinta dadka deegaanadaasi. waxaan runtii marakacaynaa inuu madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaarshe qoorqoor uu isaguna runtii xoog badan iyo culays badan soo saaray hay-adaha kala duwan ee heer federaal sidii loo dardargelin lahaa loona sii xoojin lahaa loona dhammaystiri lahaa heshiiskii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed uu soo kala dhex dhigay deegaankaas ay dadka walaalaha ay ku dirireen guddigii dib u heshiisiinta oo uu hogaaminayay Dr. Cabdiraxmaanna ay doorka weyn ka qaateen sidoo kale waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii iyaduna door mug leh ka qaadatay hawshaas siintii aan ka wadnay Xeraale iyo Huurshe iyo guud ahaan abaabulkii aan ka wadnay oo si dib loogu dhisi lahaa Galmudug aan ka soo shaqeynayna muddo isla joognay waxa ilaahay mahadiisa maanta Galmudug maanta inay leedahay dawlad inay leedahay oo madax loo doortay oo baarlamaan leedahay dadkii shalay dib u heshiisiinta guud ahaan iyo gebi ahaanba daawadayaal warkii Ramaal Media waa naga intaas warka waxaa idiin soo saaray idiin tawin anigoo ah Maxamed Cabdi Hanuun Cali warkan warka xiga intaanu ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah